in badan oo dhulkeena kamida oo dhul tacab ah maanta waxaa laga hadlayaa abuurkii, waxaa laga hadlayaa noocyo cusub iyo dalagyo cusub sidii loo keeni lahaa, waxaa laga hadlayaa waxa beeraha ka soo baxay aan dhoofi karno sidii loo kordhin lahaa loona fududayn lahaa in la dhoofiyo. maanta 65 sano kadib waxaan ka hadlaynaa khayraadka dalkeena inaan soo saarano oo hadday tahay batrool iyo hadday tahay gaas iyo hadday tahay kalluun iyo hadday tahay macaadin kale oo dhulka ku jirta intaba. khayraadka dalkeena ku jira ee ilaahay oo nagu manaystay aad iyo aad ayay nooga badan yihiin, laakiin sababta ugu weyn soo saari weyne uga faa'iideysan weyne oon korkiisa khayraadkaas saasa korkiisa aan baahida ugu dhidhimanayno waa dawlad la-aan iyo dawlad nugul oon jaha lahayn. maanta waxaan dalkeenu gaaray meel caalamku khayraadkaas ma soo saaro karno, aqoontiinu ku filneedoo lagu soo saari lahay waxbaa naga dhiman, dhaqaalihii lagu soo saari lahayna waxbaa naga dhiman, adduunyaduna inay soo qaadato beeso oo ay meel balaayo ka socoto ama rajo badan aanay ka soo muuqaninoo berri maa lagu kala tegi doonaa mise berri dambe la isleeyahay inay keento beeso diyaar u maaha. laakiin maanta soomaaliya waxaa lagu qancay haddana inay soo fiicnaatay, waddadii ay kusii fiicnaanaysana inay hayso, sidaas daraaddeed malaayiin iyo balaayiin dollar in la keeno. maanta soomaaliya waxaa ka hana qaadaya oo ka socda mashaariic aan qaaradda afrika o dhan aan ka jirin. qaarad 54 waddan ee qaaradda afrika ku taallo mashaariic aanan midkoodna ka dhaqan gelin soomaaliya maanta in lagu haminayo in laga dhaqan geliyo. haddii koronto nadiif ahoo cagaaran oo aan fasahaadinaynin bee-ada la abuurayana qof naga badan ma leh. haddii badda hirka badda laga abuuro baddii oo dheer oo dadka ugu dheeranna, haddii qoraxda laga abuuro qoraxdii ugu badneedaan haysana, haddii dabaysha laga abuurayo dabaysha ugu badanan dalkeena uu leeyahay, haddana mugdi aan dhex fadhinaa. nalalkan aan haysanaye oo aan aad iyo aad runtii isugu hambalyaynayno waa nal iftiin, laakiin isagaan la eensow maha shalay koronto aan naga tegaynin inaan maanta magaalada muqdisho iyo in badan 50% in ku dhow dadkeena ayaa koronto haysto. adduunyo aanan burbur ku dhicin, dagaal sokeeye aanan gelin, dhibaata aanay ku dhicin ayaa dadkooda 20% ka yar koronto haysataa. 78% in ka badan dadkeenu telefonay haystaan. adduunyo sidaasoo kale aanay ku dhicin ayaa dadkeedu 5%, 6% ayaa telefon ka haysata laleeyahay. taas waxay ku timiday dadka soomaaliyeed iyo nooca ay yihiin ayay ku timiday horta dadaalkooda. dalkanna annagu waxaan u doornay modelka dhaqaalaha ee ah midka privateka ay wadaan, dawladduna ay u qaabilsan tahay regulationka iyo qawaaniinta iyo nidaamka iyo shuruucda kala hagaysa inay u dejiso. maalgashiga iyo waxaa socda maanta magaalada muqdisho quruxda ka jirta dhismo leh, daaro leh, maxaanku irahday waddo leh, koronto leh, biyo leh, 24 saac gudaheed, telefon leh, internet leh, dhammaan privateka yaa suurto geliyey. dawladduna nidaamkii iyo shuruucdii qawaaniintiina waa u ilaalisay, haddana amnigoodii waa sii xoojisay. berrina inay loogu sii daro maalgelin karo korontada $100 milyan oo korontadaas privateka lagu maalgelinayo dawladda soomaaliya iyo magaceedu ku yimiday ee iskama imaanin. shirkadaha privateka korontada ka dhalaya magaalada muqdisho ayaa lacagtaas loo qoondeeyey in la siiyo. 100 milyan oo kale sidoo kale ah ayaa muxuu ahay meel walba taagan. walaalayaal, dadka soomaaliyeed waxaas ay qabsadeen waa inay ogaadaan, ay ku raaxaystaan, anay ogaadaan wanaagaa wanaag keena, horumarka
bilowgiisa horumar kala sii keena